India waxay ka rabtaa British Royal Family inay soo celiyaan diamond-kan aadka qaaliga u ah. Waxaa lagu magacaabaa Kohinoor. Diamond-kan waxaa lagu tilmaamaa diamond-kan ugu qaalisan adduunka. Maadaama boqoradda Ingiriiska goordhow ay dhimatay, Hindi badan waxay leeyihiin waqtigan waa waqtiga ugu fiican ee aan heli karno diamond-keena. Waxay maalmahan dhan haysatay social mediaha dhanka Twitter-ka. Hindigan wuxuu leeyahay boqorka hadduusan xiranaynin Kohinoor noo soo celiya diamond-keena. Hindigan kale wuxuu leeyahay Vivek Singh, boqoraddii way dhimatay maanta, dib muu heli karnaa diamond-keena, kaasoo laga soo xaday Hindiya ee British soo xaday. Britishka wuxuu lacag ka sameeyaa dhimashada dadka kale iyo abaarta dadka kale iyo daadashada alaabtooda, sida uu leeyahay Hindigan. Aan isla fiirino taariikhda diamond-kan. Kohinoor wuxuu ka imaaday Koh-i-Noor oo loola jeedo buurta iftiinka. waa erey Persian ah. Kohinoor culeyskiisu wuxuu gaaraa 105 karats ama 21 gram. Wuxuu ku xidhan yahay taajka boqoradda Ingiriiska. Diamond-ka asalkiisa waxaa laga helay meesha hadda loo yaqaano Andhra Pradesh waqtigii boqortooyada Kakatiyan Dynasty qarnigii 12aad ilaa qarnigii 14aad. Diamond-ka lahaanshihiisa hore waxaa loo tiiriyaa boqortooyadii Islaamka ahayd ee ka talin jirtay in badan ee koonfurta Asia qarnigii 16aad. waxaana la sheegay inuu gacanta ku hayay boqorkii Islaamka Alauddin al-Khaliji ee ka talin jiray dhulka Delhi. Kadib wuxuu gacanta u galay boqortooyaal Persian ah wuxuuna ku dambeeyay dhulka Afghanistan. Diamond-ku wuxuu soo maray gacmo badan oo koonfurta iyo bariga Asia ka mid ah ilaa uu ka soo galo gacanta boqoraddii Ingiriiska ee Queen Victoria markii ay ka qaadatay boqortooyadii Punjabka 1849. waagaas waxaa xukumayay boqortooyadaas wiil da'diisu dhan tahay 11 jir ama 10 jir inuu ahaa oo lagu magacaabo Maharaj Dulep Singh. ay markaas boqoradda Ingiriiska ka saxiixatay. Hadda maantadan la joogo diamond-kaas waxaa sheegta dowladooyin badan. waxaa sheegato Hindiya, waxaa kaloo sheegata Pakistan, waxaa kaloo sheegta Iran iyo Afghanistan. Hindiya waxay codsanaysay in loo soo celiyo ilaa waqtigii xurriyadda ay heshay. dowladda Ingiriiskana way ku gacan saartay maadaama ay leedahay annaga waxaa ku qaadanay si xaq ah waana heshiisyo aan kala saxiixanay. maxay kula tahay arrintan?